Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan wanaagsan daawada meel walbo aad naga daawanayso waa Taleex Media. fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saaro saad ula socota barnaamijyada halkan aan ka soo daynaa. haddii aad horey inoola joogtayna aad ayaad ugu mahadsan tahay siina shargaray fiidiyogan. kusoo dhawaaw qaybtii saddexaad ee sheekadii xeebtii dahabka iyo waayihii saxardiid. qaybtii labaad ee sheekada waxay inoo joogtay markaasuu shabaqa is hordhigay asagoo isku dayo inuu hagaajiyo. dabadeedna isaga oo filayo inay sidii ahayd ka dhigo ayuu halkii xarkii shabaqa kolba laba isku geeyey oo dacaladeedii qayb ku hagaajiyey. inta howshaa ku jiray ayay maalintii ku dhammaatay halkii oo deetana maalintii saddexaad oo isagoo faramaran soo noqday. markay aragtay islaantii isaga oo maantana waxba sidin ayay ushii ku soo booday iyadoo qayle iyo cay iskugu dartay ayuu abtigii yimid. markuu wareystayna qayle intay kula jeesato odaygii ayay ku tiri khayrlaawahan yari waa mid aan waxba tarayn, araggiisana ma doonayo ee waa inuu hadda igaga baxaa guriga, meel aan joogana uusan soo joogsan, hortaydana waa in aanan ku arag ee dhulkiisa ha u kaco, meeshuu ku noolaanayo isagaa yaqaan. saxardiid wuxuu sugayay ilaa intay dhirifkii iyo qayladii dhammaanaysay. markii qabowday ee aamustay ayuu intuu abtigii timir sidaa u eegay isagoo deggan oo cod murugo iyo tiiraanyan leh ku hadlaaya yidhi, abti waxaanu ku weydiinayaa dembidhaaf, waxaana kaa rajaynayaa inaanad waxba ii murugoon iina caroon. hubaal aayadee ma doonaysa inay gurigan igu aragto, marka siday jecesha ayaan u yeelayaa oo berri waan iska tegayaa. ilaahay baana yaqaan siduu iigu talinayo. adigana abtii waxaan ilaahay kaaga baryayaa in uu kaa abaal mariyo jacaylkii iyo xoolo ogaantii aad igu soo korisay. intaa markuu yidhi ayuu intuu ilmadii iska tiray u dhaqaaqay xaggii qolkii yaraa ee uu seexanayay. habeenkii oo dhan ayuu saxardiid jiifay isagoo aan laba indhood isku geyn. waagii markuu dilaacayna qon yar intuu mugdigii habhaabtay gurigii ayuu ka baxay isagoo ah mid la ceeriyey oo la eriyey. talow xaggoo aadi doonaa agoonkan yari, muxuuse yeeli doonaa, sidoona u noolaan doonaa, halkoona ku hoyan doonaa. keli ayuu noqday, aanu hoy lahayn, qaraabo ka naxdana lahayn, cid kale oo aana ilaahay ahayn oo uu kaalmaysanayana aana jirin. saxardiid halkii buu cagta saaray isagoo aana meeluu u socdo iyo meeluu ka socdo midna garanayn. cadceeddii baa ku soo baxday oo dadkii baa soo toosay isaga oo nin walba halkii howshiisu amaba muraadkiisu ahayd ku ordaya. saxardiidse wuu socdaa oo u socda isagoona u jeedin wax muraad ah, waddo aanu too socda ahayn oo ka saayana jirin. markaasay qorraxda kululaatay oo dhididkii labada dhaban ka da'ay. muruqyadiisii dhaylada ahaana daalkii korka ugu soo baxay. ma dareema kuleelka kamana cawdo dhibka iyo gaajada ee wuu socdaa ilaa iyo cadceeddii ay dhacdo oo sharqantii yaraatay. cagtii waddada maraysayna joogsatay. isaguse ma joogsado, gadaalna ma eego oo inuu noqdo ma doonayo, horena ma eego ilaan ma yaqaana meeluu ku socdo. wuu socdaa oo habeen baaba soo galay. markaasaa dayixii soo baxay oo dhulkii ku fidiyey iftiinkiisii. saxardiidse kama warqabo inay dharaartii dhammaatay oo habeen soo hub qaatay, kamana warqabo sidoo wakhtiga u dhaafay. wuxuu sidii ahaadaba mar uunbuu dareemay sidii oo ay dhawaaqyo kala duwan u yeerayaan oo dad aan la arkaynin soo dabayaacayaan. labadii lugoodna qaadiba kar la'yahay, sidii waxay dhulka ku dhegeen. markaasuu istaagay oo hareerihiisii eegay oo qofna arki waayey, shanqar yarna maqli waayey, dab iyo gurina midna aysan ka dhoweyn. magaaladii iyo dadkiiba wuu ka soo baxay, bannaan isdabayaal baanu u soo baxay. dayaxa iyo xidigaha korka ifaya baana wehel ugu dhow. sharqan la'aanta, keli ahaanta iyo habeenkiina ifka wada gaaray ayaa inankii yaraa ee saxardiid naftiisii baqdin gelisay. intaasi waxay noogu dhammaaday sheekadii saxardiid qaybteedii saddexaad. la soco qaybta afraad iyo qaybaha dambo.